kulan wacan wanaagsan idilahaantiin bay khiyaarta wada nagala xidhiidha email kasta oo dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaad waxaan daawadayaal barnaamijkeena diiradda ku saari doona wararkii ugu dambeeyay haatan naga soo gaadhay dalka Itoobiya qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah afayeen oo hadlay xoogagga Faano ee gabi ahaanba la wareegay deegaanka Amxaarada ayaa toddoba qodob ay sheegeen ambaba ay soo saareen waxay uga digeen shacab weynaha dalkaasi Itoobiya iyo waliba amar la duldhigayo dadka Amxaarada ee ku nool dalkaasi Itoobiya haddaba xaaladda ayaa intuu hadlay afayeenkan cirka isku sii shareeysay iyadoo ciidamada makalakayaaga ee ugu faraha badnaa loo daadgureynaya deegaanadaasi waxaa kaloo daawadayaal barnaamijkan ku qaada dhigi doonaa jabhadda OLA iyo waliba jabhadda Faano ayaa dagaal waxay ku dhaxmarayaan deegaanadaasi iyadoo OLA ay uga digtay in deegaanka Oromiya ay ku soo xadgudbaan jabhadda Faano oo ka dagaalanto deegaanka Amxaarada madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar ayaa gaaray magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida isagoo ka hadli doona xaaladaha isbarkan ee dalka Itoobiya iyo guud ahaan dowladda deegaanka Soomaalida dowladda Itoobiya ayaa soo bandhigtay dad maleeshiyada oo lagu tilmaamay in ay yihiin xoogagga Faano oo isu soo dhiibay ciidamada makalakayaaga ee dalkaasi Itoobiya balse xoogagga Amxaarada ayaa beeniyay waxayna ku tilmaameen dadkaasi inay yihiin dad shacab qodobo kale oo ku saabsan dalka Itoobiya iyo waliba hardanka u dhaxeeya Soomaaliya iyo waliba Itoobiya ayaa sidoo kale daawadayaal ku qaada dhigi doona barnaamijkeena barnaamijka alaaba ila faaqida saaxiibka Dr. Shide oo asagoo inta badan indhaha ku hayay isbedelada iyo xaaladii ugu dambeeyay ee dalkaasi Itoobiya Dr. Shide marka hore soo dhaw waan dhawaay saaxiibe waxaynu ku horeynaynaa inkastoo aad moodo xaaladda deegaanka Amxaarada inay faraha ka sii baxayso haddana haddii aad dul istaagno afayeenka Faano waa jabhaddan ka dhaqaaqda deegaanka Amxaarada waxyaabaha ay soo saareen ama uu sheegay inay toddoba qodob ku soo ururiyay marka maxaa kamid ah aad iyo aad baad u mahadsantahay Cornel Fargudow afayeenka xoogagga Amxaarada ama Faano ciidankeeda waxa uu ka hadlay ugu yaraan toddoba qodob oo kula hadlayay qayb kamid ah kula hadlay shacabka dalka Itoobiya qayb kale kula hadlay bulshada deegaanka Amxaarada lagu dhax dagaalamayo iyo mowqifka hadda u yaala inay Amxaaradu ay qaadato ee loo baahan yahay fursadan dahabiga ee hadda ay Faano gacanta ku hayso in laga faa'iideysto afayeenku waxa uu sheegay in dagaalka ay kula jiraan dowladda Itoobiya inuu hadda gabagaba yahay guushii ugu weyneedna ay marayaan meelaha hadda ay soo gaareen inayna horey u soo gaarin ciidankoodu tayada iyo maartay dhiiranaanta uu helayo iyo sidoo dagaalka daacad uga yahay inuu dhulkooda xoreeyana inayna horey Faano ayna u helin isagoo sheegay taageerada shacabka inay halkaasi ay ku soo gaareen soo kale shacabku wuxuu ugu baaqay in ay dagaalka u yahay gabagaba loona baahan yahay in hadda la istabaraacay cadawga oo tahay waqtigii gabi ahaanba Amxaaradu ay laba mid oo noqon lahayd inay ridaan wuxuu ugu magac daray xoogaggan maartay ugu sheegay dhiig meeratada waqtigii la gabagabeyn lahaa inay tahay gudaha dalka Itoobiya laga sifayn lahaa ama in ay tahay waqtigii deegaanka Amxaarada gacanta shacabka dib loogu soo celin lahaa maamulka dhiig meeratada laga xoreyn lahaa asagoo sheegay inay xaaladdu ay hadda kala bax ay marayso shacabkan ugu hambaliyay kula waaweyn oo ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan dowladda Itoobiya sidoo kale waxa uu sheegay gaadiidka maartay gobolkaasi ay Faano ay ka gasho kali ah inuu yahay gaadiidka isbitaalka ama kuwa maartay ambalaasta maartay dadka xanuunsan wada oo kali ah in ay kuwaas ayna xadid lahayn biiri ay goob kasta ama magaalo ay Faano ka taliso ama magaalo kale ay tagi karaan ay maartay gaadiidkooda iska wadan karaan sidoo kale wuxuu sheegay gaadiidka maartay u adeega dadka rayidka ay u adeega inuu isaguna uu mari karo meel badan uu tagi karo uu goboladan u kala talaabi karo laakiin gaadiid kale oo wuxuu yiri ama ganacsi ama maartay ku caadiga iska shaqada caadiga oo dadka gaarka u leeyahay bareefadka ama ku dawladeed inuu marnaba dhulkooda una ka shaqeyn karin wuxuu sheegay ciidamadooda inay ku amreen labada gaadiid oo kali ah inay dhaqaaqaan inta kale tan talaabo laga qaado sidoo kale waxa uu fariin u diray siyaasiyiinta ee deegaanka Amxaarada siyaasiyiinta ganacsatada iyo waliba dadka aqoonyahanka ka soo jeeda deegaanka Amxaarada ee ku sugan caasimadda dalkaasi Itoobiya sida ay xogtu tilmaamayso aad iyo aad bay ula dhacsan yihiin marka fariinta ay u direen ay u dirayaan ah inaysan canshuur bixinin ama aysan dhaqdhaqaaq ku yeelanin hardanka lagu hayo Abiy Ahmed maxay kugu muuqataa arintani waa arin dabka isku siishadaysa oo dadka Amxaaradana dhiirigelin kale u sii noqonaysa wuxuu sheegay in shacabka deegaanka Amxaarada meel kasta ay ka joogan dalka Itoobiya
in ay xaaraan ku tahay buu yiri haday lacagtooda canshuur ah ay bixiyaan oo siiyaan maamulka Abiy Ahmed ama BB ay ka dhigan tahay buu yiri in hantidoodii shacabkooda ay ku leynayaan oo ay yihiin biro qaaymin wadaniyiin ahayn biro qaayn wadan ay yihiin biro wuxuu lacagta BB waxa uu leeyahay adduunka dhan inuu ka soo xidhmay dhaqaale la'aan ay la daala dhacayso dagaalada iyo dhibaatada dalka Itoobiya ka taagan inay maareyn laajiin marka wuxuu yiraahdaa lacagtiina ugu deeqdaan oo canshuur bixisaan waxay ka dhigan tahay biro in dhiigga shacabkiina aad xalaalaysateen idinkii kuwaas isku dambi baatiin biro marka wuxuu yiri ninka axmaarka waxa looga baahan yahay inuu qoriga qaato dadkiisa xoreeyo naftiisa u horo haduuna inta awoodin dhaqaalihiisa ha hanti oo xaftay biri in BB gacantooda gelin sababtoo tahay biri hadii dhaqaalahaasi aad diido in aad bixiso waxyaab dad badan baa ya dhaqaalahaasi ya lagu dhibaateen lahayd laakiin way badbaadayaan biri dadkaasi soo gal siyaasiyiinta axmaarada wuxuu u diray cidii ka tanaasul weeyday biri la shaqeynta BB ama gacanta ay ka sinay cadawga ay hordayaan wuxuu maalin maanta musharax uu qabanaya dhalinyarada deegaanka axmaarada ee u istaagtay deegaankooda inay xoreystaan waxa uu yiri way ogsooyin bil cidda cadawga la socda iyo cidda aan la socon cidda maalin wax u qabatay ciidada aan u kala qoran tahay biri laakiin wuxuu dad cadawga inuu garab joogo xukunku dhaca biri waxa xaqiiqo ah in sharciga loo keeni doono tiirkan ay tagi doontaan lana kala bixi doono biri aan mar dambana caloosho shaqayste iyo nin cadow la safan una ka shaqeyn doonin biri ee deegaanka axmaarada marka waxaad moodaa xoogag faana inay hadda soo jeesadeen oo dadkii maartay faanadii ay noqotay awood aan la dhayalsan karin oo siyaasiyiintii deegaanka axmaarada cabsi weyn gelinaysa ayaad moodaa oo gabi ahaanba aad iyo aad baad u mahadsantahay weli daawadayaal waxaynu ku dhex jiraa barnaamijkeena faaqadaada aynu ku lafaguraynay xaaladda dalka Itoobiya haddii aan dib kugu soo noqdo Dr. Shidow waxaa jira in Itoobiya gabi ahaanba ay haatan karkarayso oo xoogagii faano oo ay taageerayaan dowladda Eritrea Masar iyo waliba wadamo kale oo Suudaan sida lagu sheegay inay heleen hub casri ah oo ay soo riixeenba ciidamada makalkayaga deegaanadii ugu faraha badnaan ay gacanta ku dhigeen marka dagaaladan maxay u muuqataa tan soo laba kacleeyay dhanka kale ciidamadan faraha badan ee maleeshiyaadka ee lagu tilmaamay dad shacab iyo inay yihiin laakiin ayagu Itoobiyaanku ay ku tilmaameen inay yihiin dad maxaabiis Soomaaliya laga qabtay maxay yihiin ayagu dhalinyaro aad u tiro badan oo lagu sheegay inay gaarayaan ugu yaraan 3500 oo dhalinyaro ah oo dharkii maxaabiista xiran ayaa telefishinka qaranka lagu baahiyay oo rag saraakiil oo ciidan ah ayaana meeshaas ku sugnaa waxay sheegeen in dhalinyaradani ay ahaayeen dhalinyaro is soo dhiibay oo faano intii dagaalka hadda lagu jiray ka soo baxsaday oo ciidanka militariga isku soo dhiibay oo dhaqan celin loo sameeyay dhaqan celintii markii loo sameeyay kadib tababar ciidan loo furay haddana u diyaarsan bay dalkooda inay difaacaan way faano ay ka hortagaan oo la dagaalamaan barnaamijkaasi ilamaha aanu shaqeynayo oo sababtoo ay tahay faano markii ay la leeyahay niman faana ay soo dhiibay memory hore waa laga bedelo ku kala la galiyay anu waxaan qabaa inay rabaan oo siyaasadda ay ka tahay hubka markuu gacantooda galay dawladda kula jeesadaan inay rabaan oo siyaasadda qayb ka mid ah tahay orday